idinka maalin ilaahay keena kick reaction aad bixisaan dhalinyaradan waxa idin soo diraan wax Soomaaliya quseeyo way Soomaha iyo anaga waxna quseeyo aan reaction ka bixisaan waa gartay arana u baahantiin marka hadda inaad ka hadashaan maanada adduunkan uu soo socdo burciido maanada waxay tahay ninka isbiid ah waxa la leeyahay waxa macquula inuu Soomaaliya yimaado waa gartay awlkumu soo darin laakiin sa hadda maqlayo waxa la leeyahay wada hadal socdo ninka wuxuu rabaa inuu Soomaaliya tago waa gartay يا المقدسين وهات غنا ساعة من الوشيء نكا أضيع مالا وصومري قري إسكتافة بستولد حتى على ما أعرف نورتكو واقر قاب قروح بدنا لوسو ودبي نول بقاسو إسبيد وقف إيديستي ما دام نكا الدنيا يكون حرنت هاي وإنترناشنال دي هاي نول بوقف إيديستي ودن كيس ماش وقروح بدنا إنه تصو صور قروح بدنا عاشو إسبيد وكو جد بيو صح هذه أفريكان تكلا دوا كفائدين جبي ودمده وصومري زيمبابوي ساوث أفريقيا أنا مركز لبضة نوع مهمسن وحفالتن كقول جرنو وأكون إيست أفريقيا نلا كينيا إثيوبيا صح كينيا إثيوبيا هذا بقى بيج دبليو برتة ديجان ويكفى إيديستين ماركتين وعلنا سمستين حيسين عن إنه بعادي هين أي عندها عالم كقدرين كينيا إيركابتر يكعس طبعا أوكي إنه جيرا إيركابتر على صاري قروحدا ويابو ندران دري كي is beautiful bro كيس وكبحيوه إثيوبيا كذلك وأفانين وحا إسليه كران عالم كأوجد بين كتان إيه سميين برعيدو وحا أكتاي نكي دونالد ترامب لقطو نوغو هايا نعيبك ودونالد ترامب وهايا صومالي دونيدان كالدان وما هايو وأكتاي جالنجي لقل نكاس حتى حالي أقدم بيسي wuxuu dhahaayay sheekada waa ka soo tagtay Soomaalidu waa Karabaj waa qashin waa jaahiliin waxa uma baran waa tuugo waa ka soo tagtay xal wuxuu dhahaayay hadda koor burcabadeedoodii wuxuuday waa fashilnay gantaal waxna ku dhufnaan ugu booteenay ayaga laftirkooda dunida laga weynaa oo yiri xal dunida laga tirtiraaba waa gartay marka wiilkan wuxuu ka soo jeedaa waa ogtahay America marka hadii aan u yimaado oo isxilqaami weyno oo sida dalalka dariskeenna ay sameeyeen aan sameyn weyno oo ceeb ay dhacdo Donald Trump cunsuriyaashi taageeray oo Soomaalida hadda ay saayaan ogtahay shaqadooda inay qabsanayaan aad ni hortay waxa loo baahan yahay organizing in la sameeyo hadda tusaale ahaan madaxweynaha oo Kenya wuxuu dhahay moogta soo dhawaaw dhaa moogta sax iyadoo leef ku jiray isbiid wuxuu dhahay yaa waayo dhahay وكو خصبيها because حنو كان ويل يروى أمريكي بعد ما كان يقان أفريقيا وحربا إنا ميل كاتوسو كيا معها إنا سميالا جوان لهين لكن يو أدونك وحال يسكدي لوحلا دها براندين ما فهمت هذه مريكان كوحوا ماشي وقطر سنة وحس قطر كوح إنا دتك the good side كاجا تستي the bad side كاجا آخر ستيت وحي كميتها معناها ما فهمت هذه وحوا ضمدوا يسكتنا فين Soomaaliya waxa u maleeyay the bad side in aan social media la wadaagno so arintan hadii inay dawladdu ku lug lahaato waa muhiim ونكاس دوينتيسا ميلها اللي جينا وحور عند كنترول أي نقطان سي the good side لأنه وجود وأنا فاهم كلام ماشي كإيماني سدوا حتى أدون كيو لأن هندي إيست أفريقيا نلاقو عياي هدو أنت إيست إمالة ميلها جبني بلاي قرا وضتيو عيال طورة العركة شاكدي وحنا نقول لمن يسأل no government no nothing no police ما فهمت هذه كاربج مع الله لكن أنا ما أم لنا إسبيد إنه إيمانها الصومالي صاحب أم لنا أرتمت الحمد لله إيطا سوري كولا يسوق عاد مين موسى وكم قلها أرتا دو ما ويا الحمد لله سيد اللي ربوا جايز رمعناها سوري كولا يسوق على صاحب دو ما ويا أرتا سيد اللي ربوا وهذا الحمد لله ويل كينير أرتا السياسة وحبك ميقا أنا هدوه يا ويا مدحوينها كينيا كالصومالي هدوه dadka kama xanaaqayaan nin siyaasad yaqaan maaha waana wiil yar kaliya maaragtay entertainment sameeyo way qof maaragtay uu xanaaqdayna male xitaa Kenya dhaxdeeda aan waxba ka soo qaadin laakiin wiilka yar entertainment buu sameeyaa laakiin wuxuu xambaarsan yahay wadan kasta uu tago sawir aad u weyn inuu ka bixiyo tusaale fiiri hadda markuu tagay Zimbabwe iyo South Africa Black African American كسومة تغاني Black African American كواشين واي أنا African نلوجد ديجي جري مهل حن بوش
marka millions oo madow ah oo cadaan ah ayaa TikTok waxay soo wada dhigayeen damn inti dal uu soo maray gebi dhinacooda quruxda badan ay diyaarsadeen waa ay tuseen waayo wiilkan asaga fiiri kuma dhahay asaga meeshaasi gee adaa hogaaminaya indhaa u tahay waaba jaanis fiicanba maadaama indho u tahay waa inaad isu diyaarisaa marka waa inaad isu diyaarisaa waa in aad geysaa meelo qurux badan aad diyaarsatay waa in habdhaqankaagu uu noqdaa mid degan oo ay nabad ka muuqato waa ogtahay anaga saaxiibow dhallinyaradeena markii la soo dhaweynayo wax bustoolo dharcad cararaayo iyo wax hub la arkaayo iyo waa saanta cungaas wax laga weydiinayo waxna lama socdo xitaa wadamada ma ahan inay invitation u direen asaa iska tago wixiisa dhan asaa iska imaado asaa invitation soo dirsado asaa iska imaana marka midka markuu madaxweynaha uu soo dhaweynayo xitaa islama hadlin soo uma jeedi sababta haduu madaxweynuhu la hadli lahay way ma dhihi lahayn yaa waaye su'aalo dawlad leh si macnaa hadda madaxweynuhu looga soo gaanjiyay so laakiin waxa u baahan horta codkaana meel dheer u gaara insha Allah waxa rajayna dhalin markay duubaan inuu dawladda gaaro dawladdu waa inay image-keena noo difaacdo oo ninkaas haduu imaanayo lama oge arinta aan la dhayalsan gacanta lagu qabto waxaana buro adduunka waxa maqaayad ahayn male adduunka meel walba maqaayad ka jirta laakiin waxa la rabaa in ninka meelaha shishidan la geeyo wax walba under control ay noqdaan la ilaaliyo Soomaalidan way iska indha cadeynayaan xataa aysan baaha dilin oo ninkii lagu soo kala ordin wixii nidaam loo yeelo sida markuu socdo kale dadku ka dambeeyaan iyo oo aan noqonin wax lagu qoslo lagu shactiraysto caalamka noo ma fahmino waxa la dhahay digital footprint ina la dhahay wixii hal mar ku gala ma baxayaan bur magaca musiibana maalin ياد لكن دولدو waxaa la rabaa barnaamijka inay indhaha ku hayso waa indhaha caalamka nahaya hadda saa sheegtay waa intaasba inta maanta dhan ka hadlay si fiican ila fahamtay marka waxa la qaarana ka hadlin maahane baraanu caalamku waa la socdaa wax walba aan daawada ma fahmin wadi aad marka aniga waxa waay kulamada aan walaalkay tan waa ka naxay marka waxaan iri noo isbeeta inuu noo imaanba haduu noo imaanayo weyni diyaar garow u baahanahay inaan diyaar gareyna u baahanahay mid kale big shout out dhalinyaradii maalimahan wadooyinka xaaqayeen ay bilowday gabadha ma aragtay hodaniita ma Allah misoodan oo qoran big w waa maasantiin in la dhaho way waa maasantiin dhalinyaradaas xilli fiican aad ku soo beegantay jiki arintaas dadaan kiig reaction ka bixinayay burcidu wadan waxa joogtaa dawlad ka jirto sidoo kale wadan dawlad ka jirto bar waa ogta cawaaqibta ka dhalanaysa banaanka daaqashin ku tuurti sax way oo xaqitaanka bis wax ma taraaye maanta hadii galabta la xaaqo oo caawa qashin lagu tuuro subaxii meesha xataa bilicdeedii way lunta dawladda waxa rabaa meelaha camera CCTV in lagu xiro qofkii qashin tuuraay ay ka imaato punishment Allah u naxariiste Maxamed Dheere Allah u naxariiste markuu Jawhar xukumayay inkastoo Jawhar ay tahay caasimadda gobolka dhex magaalada Muqdisho la barbardhigi karin baro wuxuu ka mamnuuc bacda qafiifta jaadka lagu xiro ma aragtay aad uu ka mamnuucay magaalada dhan nadiif ay noqotay waa arta bacdan Soomaaliya iska tuurayaan maaha so dawladda xal rabaa dadkan qashinka tuura in la xisaabtamo mid kale saa waxaan ku ark Soomaaliya dabaqyo qataraha dhisan waxa dabaqa bilicdiisa waxa soo saaray wadada waa xitaa fiir 1 2 3 4 dabaq markii yiin meesha hore hortooda laami xitaa way saari la yihiin you see aniga marka horta taas insha Allah way noo dambeyn doontaa oo 2026 dhalinyaradeena dhaxda qabsan doona oo dawladdu waxa waaye haduu Ilaahay yiraahdo waa ka wada shaqeyn doonaa bay dalkeena saa u quruxsanee horta tan horta Ilaahay han waa asturaba Ilaahay han waa astur horta saxibnikan wadamada uu tagay wuu ku soo wada dar asaga ma dhawa imaana hal mid ninkan wadamada uu tagay sawirada uu soo dhigay Soomaaliya uu ka reebay laakiin mid jirto ogow wiilkan he is gaining subscribe uu gain gareynooya wuxuu rabaa inuu hore u socdo asaga waxba kama gelin wadanku tagayo inuu ku fashilmay iyo inuu wadanka fashilmay waxba kama gelin waa nin raba inuu qatarta u bareero speedna waa aragtay qatarta ka qatarsantu sameeyaa waa ninka waxyaabaha qaar ee lagu dhiman kara xitaa cunay marka way ku dhici kartaa fikradda hadda saan maqlayo inuu si hoose u raadinayo in uu u bareero Soomaalida la leeyahay qatar waay tag amal annagoo is diyaarna doo hoosta laga soo gala gabar marka ina u diyaar garoona waa maaleeda ay wadanka muu diidi kartid nin waxa way caalamka dhan daawadaan way diideen oo kuleeyahay I don't know ma aqaan ay wixii lagu sheegay dhab wax u diideen leemaano marka ma saaxiib barnaamijka u diyaar garoona waa la dhayalsan magaca suuqa iyo sanoo gelin marka wanda gooy soo dhaw dhamaantii soo dhawaada dhalinyaro
marka intaasaan aan reactionkaas ku ekeenayaa saaxiibayaal hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan rajeynayaa in arrinkaas aanan ku fashilmin anigu saaxiibayaal nin waxaan ahay jecel horumarka soomaalida qurbaan ku noolahay qofka markuu qurbo ku nool yahay uu ogaan karaa soomaalinimada waxay tahay ada hadda soomaali koo kaloo walaalkaa le ag joogtaa iyo islaan iyo dadaa iyo habeertahay laakiin markaa qurbaha aa imaadid ee subax alisay adoo shaqo u socdo bas saaran naag indhaha kuu gubaysa inta aragta markaa saas u fiiri sidee ku dhahda bax waddankaaga ku noqo madowyo markaasaa ogaanay soomaalinimada maaragtay macaanka ee leedahay marka saaxiibayaal waxaa waaye aniga waa jeclahay inuu waddankayga horumar gaaro ugu horeeya ee ku soo noqonaya haddee soomaaliya horumar gaarto ee noqoto meel rajo kasta wiil dhallinyaraa uu leeyahay uu ku rumayn karo ninka ugu horeeya ku soo noqonaya ani waay ilaahayna ha noo kaso ma fahanteen marka arrinkaana ha la gaarsiiyo dowladda ha la gaarsiiyo halkan waxaan ku jajarnay bal diyaargarow ha ku sii jiraan hadduu yimaado waa kaas hadduu imaan waayana waa kaasa bal ha isa sii diyaariyaan macnaha arrinka yaan la dhayalsanin ulajeedkeena kaas waay warasay burcid sida kale الله صاحب الحمد لله ما شاء الله ما ساعدني الحمد لله صاحب وكوفي عنها هي ما عصب جوي سيدا كله والله ما يوحنا قصدي والله اسكت ان شاء الله ما شاء الله صوق قلي كو ايرا اسقبنو ادنا اسقيا قراري markaan yana waxaan ku dhaani waxaan jeclaa saabni ka raga haduu CK waxaan ku yeeshino kaleeto ina wixii sidii ahaadaan dadka go'aanka kala dhaxeeyo iyo dadka ma aragtay qof la soo tashanay iyo maanta wada hadalna ani CK waa kulmeena aan ku dhahay هي dhahday waa asaasan ku kala tagnay hadhow macnaha in kulankii koor oo kale ay la soo hadashay dhahdo kale turniin inaan kiri waa raganimo laakiin burciido macnaha kulankii marka is imaanay inaan dhaadiyo kale nin meeshii aan aadina ma aadi kari oo kale waa doqonnimo moogta aad si fiican saas waa sida kale la jooga aboosta waayo maxay saadi wallahi sida kale jooga aboosta waayo saaxiib ma sha Allah hadda shakiiba idoo ya shakiiba soo qabanano soo qabo waa sheekaysanayna waa baashaalena dhalinyaradana waxaan isku dayaynaa inaan duuqan samaysan